mogtahay in dhammaan gawaadhida ugu naadirsan caalamka uu haysta hal nin oo keliya waana suldaanka dalka Brunei. haddaba waxay qiimaha gawaadhidiisu gaadhayaan in ka badan 5 bilyan oo dollar, waxayna tirada gawaadhidiisu kor u dhaafayaan in ka badan 9,000 oo midh, kuwaasoo aanad ka helayn meel kale oo aan ka ahayn xaafadiisa. qasrigiisu wuxuu galay buugga dhacdooyinka adduunka ee World Genius Record, kaasoo noqday qasriga ugu weyn ee lagu noolyahay waqti xaadirkan aynu joogno, waxaana ku baxay dhismihiisa lacag kor u dhaafaysa 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka, waxaana ku yaala qasrigiisa 1788 qol iyo 257 suuli iyo buul laga dhisay dahab. hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa inay ka badan tahay 30 bilyan oo dollar, waxaana la sheegaa inuu bishii isticmaalo in ka badan 10 milyan oo dollar. xitaa dhalashadiisa kontonaad wuxuu soo kaxaystay fanaankii Michael Jackson, kaasoo xafladiisa dhalashadiisa ka soo qayb galay, wuxuuna kadib markii xafladii dhamaatay siiyey 17 milyan oo dollar. suldaankan wuxuu timiisa ku xiirtaa 20,000 oo dollar toddobaad kaste, wuxuuna soo kaxaystaa timajarayaasha ugu xariifsan magaalada London. sidoo kale wuxuu ku iibsaday diyaaradda loo yaqaano Boeing lacag gaadhaysa 400 milyan oo dollarka Mareykanka, wuxuuna intaas kadib gudaheeda ku sharaxay dahabka noociisa ugu qaalisan, isagoo sidaas u isticmaalay lacagta dalka. haddana shacabku waxba kama qabaan arrinkan, sababtoo ah dalka Brunei wuxuu ka mid yahay dalalka ugu sarreeya dhanka maciishada, waxayna haystaan kayd badan marka loo imaado dhanka shidaalka iyo sidoo kale dhanka dahabka. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, dalkan hore ma maqashay? qaybta kommentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube iyo Facebook profile ka saaranna aad subscribe dhahdo.